boqolaal qoysas danyar ah oo ku nool xaafadaha Xawtaaka iyo Buundaweyn ee degmada Beledweyne ayaa maanta loo qaybiyay gargaar raashin oo ay soo dhiibtay boqortooyada Cumaan. raashinka oo ka koobnaa bur, bari, sokor, saliid, timir iyo caano ayaa waxaa loo qaybiyay oo ka faa'iideystay in ka badan 600 oo qoys oo danyar ah oo laga soo kala xulay xaafadaha Buundaweyn iyo Xawtaako. Cabdixakiin Maxamed Nuur Qoslaayo oo loo soo wakiishay qaybinta gargaarkan raashinka ayaa faahfaahin ka bixiyay raashinkan iyo noocyada uu ka kooban yahay ee tirada qoysaska loo qaybiyay intaba. maanta oo ah maalin sabti ah taariikhduna tahay 25 bishii shanaad 2019 ilaah ayaa noo saamaxay waa maalintii labaad ee aan bixinayna daaq raashin oo nooga timid boqortooyada Cumaan. daaqdaani ma ahan daaq hadda soo bilaabatay, waa daaq Ramadaan kasto ay u soo dhiibi jireen walaalahood islaamka ah ee reer Beledweyne. daaqdani waa Ramadaankii shanaad hadda aan maanta bixinayno, waana maalintii labaad. horey waxaan u soo siinay xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne iyo xaafadda Howladaag. maantana waxaan siinaynaa xaafadda Buundaweyn iyo xaafadda Xawtaako. marka alxamdulillah ilaahay ayaa ku mahadsan. afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne ayaan daaqdan ay gaartay dadka danyarta oo u baahan. waata hadda aan bixin hayna daaqdii raashinka ee labada xaafadood ee Buundaweyn iyo xaafadda Xawtaako. marka alxamdulillah ilaahay ayaa ku mahadsan. daaqdaas oo macnaha tiradeeda ay ahayd maanta la bixinayay ilaa 600 oo qoys. maalin dhaweedna aan bixinay 600 oo qoys in ka badan. guud ahaanna daaqda ay ahayd macnaha 1850 qoys oo loogu talagalay xaafadaha magaalada Beledweyne iyo isbitaalka magaalada iyo agoonta Ugaas Khaliif. marka alxamdulillah aad iyo aad waxa u mahadsan maamulka gobolka kan degmada iyo maaragtay doqo magaalada oo aad noogala shaqeeyay. marka waa ugu mahad celinaynaa. ilaa ayaa mahad iskale, mahadda koowaad ilaa ayaa iskale, ayakana waa u mahad celinaynaa insha Allah. marka dadka ka faa'iideysanaya daaqda waa dad danyar ah. daaqda waxay ka kooban tahay raashin ka qaybihiisa kala duwan: bur, bariis, sokor, saliid, caano booro, timir iyo baasto. marka waa daaq aad u muhiim ah. qofka ilaahay u sakhiro calafna ku siiya iyo cimri uu ku cuno, maaragtay waa daaq anfacaysa du'aale insha Allah. duqa magaalada Beledweyne Qadar Xasan Afrax oo ka hadlay qaybinta gargaarka raashinka ay soo dhiibtay boqortooyada Cumaan ayaa uga mahad celiyay boqortooyada Cumaan iyo waliba dadkii loo soo wakiishay ee soo gaarsiiyay gargaarka raashinka ah magaalada Beledweyne. maanta oo ah maalintii labaad ee daaqdii waxaan ku sheegay raashin ee loogu talagalay afurinta afarta xaafad macnaha bulshada ku nool magaalada Beledweyne gaar ahaan afarteeda xaafadood ay noo soo dhiibeen walaalaheen waxaan ku sheegaa boqortooyada Cumaan. boqortooyada Cumaan waxaan u mahad celinaynaa in ay sanad kasta oo macnaha Ramadaanka inay macnaha walaalahood muslimiinta ee ku dhaqan magaalada Beledweyne inay maxaan ku sheegaa ay afuriyaan. sanadkan waa sanadkii shanaad bil Ramadaan ay noo soo dhiibayaan inay dadka masaakiinta ee islaamka inay ayagana doorkooda qaataan ay afuriyaan oo ugu mahad celinaynaa. waxaan rabaa maanta waxaad goobta ku sugan laba xaafadood, xaafadda Buundaweyn iyo xaafadda Xawtaako, oo xaafad walba laga soo xulayay 300 oo qoys oo macnaha dadka danyarta ama liito. marka waxaan mar labaad aan u mahad celinayaa walaalaheen maxaan ku sheegaa boqortooyada Cumaan ee sanad kasta macnaha garab istaagan walaalahooda islaamka inay afurkoodii ay macnaha waxay karaan ay u soo dhiibaan. waa idinka mahad celinaynaa. waxaan idinka codsanaynaa in waxyaabaha macnaha aad afurinta aan noogu soo diirisay inaan ka awood badan lahaa gobolka ugu weynaa aan nahay gobolada Soomaaliya dhexe. dhinaca kale qaar ka mid ah dadkii danyarta ee ka faa'iideystay daaqdan raashinka ah ayaa uga mahad celiyay dawladda Cumaan gargaarka raashinka ay soo dhiibtay. waa aniga oo xaawadiiriya ah dadka walaalaha muslimiinta oo wax noo soo dhiibtay oo wax noo keentay walaalaha naga soo gaarsiiyay oo na siiyay waa mahadsan yihiin. waana soo gaareen, waa helnay, waa haysanaa. waxaan haysanaa saliid, timir, bariis, baasto, sokor,
caano intaasba waa haysanaa baahi waxaan u qabnaa wax walbaba meeshay leeyahay waa naga maqneed qolaana camaan maatayihiin sombilaa lagu jiraa bariid baas sokor timir kulwa noo tiriyaan waa maatayihiin axsan dajisa kala amaana alla ama rasuul waxaan ka bari sombilaan ku jirnaa waa soomanahay magarad ilaahay qolaana camaan waxa way noo tiriyeen bur iyo bariid iyo sokor iyo saliid noo tiriyeen waa maatayihiin dawladda Cumaan oo nagu deeqday raashinkan nagu deeqday oo timir leh oo bariis leh oo bur leh oo saliid leh oo baasta leh waa mahadsan tahay khayr Allah siiyo geeska kale duqa magaalada Beledweyne Qadar Xasan Afrax ayaa waxba kama jira ku tilmaamay wararka sheegaya in musuqmaasuq iyo isdabamarin lagu sameeyay gargaarkii raashinka ay soo dhiibtay boqortooyada Cumaan isla markaana ay sheegay in sidii loogu talagalay bulshada danyarta loo gaarsiiyay gargaarkaasi waxaan rabaa in maanta ayadoonan ummaddii waxoodii la musuqmaasuqin ama aanan dhibaato kaleeto aysan ku dhicin in la yidhaahdo xoolihii ummaddii loo soo dhiibaa la qaatay raggii macnaha boqortooyada ama wakiilka ama inay gaarsiiyaan deeqdii loogu talagalay waddankii laga been sheego inay waxay wadeen ama la dhacay ama ayagii macnaha ay fududeen oo kaleeto ama loo tilmaamo annaga maamulka degmada ama xafiiska Mayraan waxa xil naga saaran yahay in ummadan magaalada Beledweyne deeqdi loo keena aan si cadaalad u qaybino laakiin naga suurto gasho in mas'uuliyadda annagana saarneed oo inaan wax ku siino ummadeena ama shacabkeena laga rabay in aan annagiiba waxaan ku sheegaa aan noqono kuwa ummadii wixii loogu soo macnaha loogu soo dhiibay macnaha ayaga ku tagrifalo ama aan baqaaro ku shubto waxa waaye ilaahay aqligeena waa ka weynaysiiyey mana naga suurto gasho raashin 4 xaafadood ee macnaha leed ama 2 xaafadood leed ayaa la musuqmaasuqay dhaayeen raashinka la musuqmaasuqay hadii 4 xaafadood lahayn oo kuwa ama 2 xaafadood ay lahayn waa kuwa maanta ay qaadanaya ee idin muuqday meesha fadhiyo annaga raashinkaas masuuqa ugu soo gadnay suuq ugu maana soo gadin waa raashinkii xaq u lahaayeen ninkii shalay macnaha ama soonay ayadoo bil Ramadaan lagu jiro ay yiri xoolii ummadii waa la dhacay ama 600 oo xaafadda ay leedahay waa la qaatay maanta oo kuwaas 600 oo labada xaafadood laga soo xulaa meesha fadhiso raashinkoodii shalay ay lahaayeen oo hadda la kuudmaya ama amni darro ama waxyaabo la mid ah aan ka dareeno oo u xareyno ummadina oo ku maanta si amni ku dhaantaay cid walbana mas'uuliyadda ay leedahay hadii amni ay tahay doorkii amni iyo saraakiisha xukuntay ayaga madaxda u eeday maanta u taageen ninka tagay ka tii kara aysan jirin anigana hadda maxaan ku sheegaa ka Mayraan oo taaganay mas'uuliyadii saarneed aan qaadanay aan raashinka shacabka ay lahaayeen aan u soo istaagnay ay shacabkii si nabadgelyo ay raashinkooda ay ka qaadanayaan xilligan waliba hadda hadlaayo waxa jiro dad shakhsiyaad wali aan raashinkooda u imaan balse cid ka taabanaysa aysan jirin biri subaxdii Allah ka dhigay ama biri damo cidii kaar la siiyay raashinkaasi maxaan ku sheegaa kaar aan loo soo siiyay in maalinkii kaarkooda la yimaadin maalmaha soo socota inaan sii doon marka qof xuquuqdiisa oo la cid kale tan ma qaadanayso Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Somali News Beledweyne